السلام عليكم soo dhawaada asxaabta maanta muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa saddex qaab oo aad ku siyaadin kartid IQ-gaaga laakiin ka hor inta aan muuqaalkeena maanta u guda galin fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe noo saar like share nasiid adoo sii gaarsiinaya asxaabtaada kale haddaba qofka marka uu qaangaaro ayaa waxaa lagu kala duwan yahay inta uu kordhiso dhanka IQ-ga ama maskaxda bini'aadamka laakiin inaad kordhisaa maskaxdaada ama IQ-gaaga ayaa waxay ku xiran tahay qofka haddaba halkan waxaan maanta idinku soo gudbin doonaa saddex qaab oo aad ku kordhin karto waliba si cajiib ah inkastoo aysan sidaa u fududayn inaad kordhiso waliba si dhaqsi ah IQ-gaaga maxaa yeelay waxa ay qaadanaysaa waqti iyo juhdi fara badan inaad kordhiso IQ-gaaga laakiin haddii aad saddexdan qaab aad joogtayso ayaa waxa ay u badan tahay in IQ-gaaga kordho haddaba numberka koowaad ayaa ah in aad wax isbarto haddaba waxaan joognaa qarniga 21aad ee ay fududahay in xog aad hesho maxaa yeelay haddii aad rabto xog waxaa si fudud uga heli kartaa internetka haddii aad taas tijaabis in aad Google ka geliso su'aal walba oo maskaxdaada ku soo dhacdo kadib ayaa waxaa si fudud ku helaysaa xogtii iyo baaritaanadii aad rabtay ama informationkii aad rabtay inaad heshid iyaga oo baaritaan hore loogu sameeyay iyo buugaag ku aadan arintaas dadka nolosha heerka ka gaaray ama guuleystay ayaa waxa ay sameeyaan baaritaan fara badan ayaa waxa dabeecadooda kamid ah in ay sameeyaan baaritaan fara badan oo ka baxsan waxa loo dhigay ama ay qaateen waagoodii jaamacadda markii ay dhiganayeen waxay sidoo kale ku dadaaleen koorsooyin online ah taasi oo ka saacidayso inay siyaado xirfadooda laakiin halka caqabada ay leedahay inaad wax isbarto ayaa ah in aysan jirin qof sida aad u qaban lahayd u sheegaysa maadaama aad kaliya wax isbarayso mase jiro qof kugu cadaadinaya inaad buugaag akhriso haddii aad rabtid inaad IQ-gaaga siyaadiso wax badan akhri wax badan baar adiga ayay kugu xiran tahay inaad mawduucaas ah wax ka ogaato adiga ayay kugu xiran tahay inaad dadaal iyo juhdi geliso inaad hesho xog gaar ah inaad wax isbarto waliba kaliya ayaa ah sidoo kale mid ka mid ah dabeecadaha dadka guuleysta sababtoo ah inaad ogaato xog fara badan iyo qaab fara badan ay dadka badankood aqoon dadka IQ-gooda sareeya ayaa maskaxdooda fahmaysa waxyaabo fara badan maxaa yeelay maskaxdooda ayaa waxa ay urursatay xogo fara badan haddii aan isla soo eegno midda labaad ayaa inaad orod samaysid ama aad ruclaysid haddaba qaabkan oo ah qaab kamid ah jimicsiga ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadataa in IQ-ga siyaado waliba si cajiib ah baaritaano la sameeyay 2009kii ay sameeyeen International Academy ee wadanka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in xiriir dhow ay leeyihiin IQ-ga in la siyaadiyo iyo in orod la sameeyo orodka ama ruclaynta ayaa waxa ay qayb dhexaad leh ka qaadataa in wadnaha uu si fiican u shaqeeyo haddaba in la sameeyo jimicsi ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa in uu siyaado IQ-ga balse ma aha dadka qaar sida ay u fikirayaan oo ah in biro culays badan la qaado iyo in murqaha la kordhiyo ay ka qayb qaadanayso IQ-ga inuu siyaado halka haddii aad si fiican ugu shaqaysiisid wadnahaaga ay ka saacidayso in IQ-gaaga siyaado 2009kii baaritaan la sameeyay oo qayb galeen dadka sameeya orodka ayaa waxaa la ogaaday in ay yihiin kuwa leh IQ sare maxaa yeelay cadad fara badan oo dhiig ah iyo oxygen ayaa maskaxda gaarayso maskaxdan ayaa waxa ay u baahan tahay dhiig si ay si fiican u fikirto una soo xasuusato waxyaabo fara badan haddaba numberka saddexaad oo aan maanta soo qaadan doono ayaa waxa ay tahay in aad barato luqad cusub haddaba luqadda ayaa waxaan u isticmaalnaa inaan ku sheegno fikir aan ka qabno mawduuc qaas ah waxaa sidoo kale luqadda u isticmaalnaa inaan sheeko ku sheegno luqad la'aanteed ma u fikiri lahayn sida aan hadda u fikirno haddii aanan luqad aqoon lahayn tani ayaa ah sababta fahanka luqad ay qayb weyn ugu qaadanayso IQ-ga inuu siyaado barashada luqad cusub ayaa waxa ay ka caawinaysaa in aad ogaatid macluumaad fara badan oo ku qoran luqadda aad baratay 2012 ayaa baaritaan la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in dadka qaangaarka ah oo ku hadla luqadaha badan in ay ka IQ sareeyaan markii loo eego dadka qaangaarka ah oo aan ku hadlin luqadaha badan oo ku hadla kaliya hal luqad haddaba haddii aad sidoo kale luqad cusub baratid ayaa waxa ay balaarinaysaa maskaxdaada iyo hab u fikirka waxa ay sidoo kale iyadoo taasi ka qayb qaadanayso balaarinta laba qaybood oo ka tirsan maskaxda haddaba labadan qaybood ayaa waxaa lagu magacaabaa hippocampus iyo frontal lobe hippocampus ayaa waxa ay qabataa inuu qofka marka uu wax cusub barto iyo xusuusinteeda haddaba qaybta kale oo lagu magacaabo frontal lobe ayaa waxa ay sidoo kale qabataa in la xalliyo dhibaatooyinka haddaba halkaas ayaan maanta muuqaalkeena kusoo gabagabeynaynaa waxaan rajeynayaa inaan wax uun ka faa'iiday hada billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu